halis ma u gelisay naftaada si aad u heshid waxbarasho wiilkaas waa dhintay laguma guulaysan inuu soo noqdo qasab ma kugu noqotay inaad ka tagtid xishoodka si aad u tagtid dugsiga anagu waxay xaydana nala arkaya anagu bari duduwana nala arkaya ma lagu diiday waxbarashada cabsi laga qabo inaad geeriyootid darteed ardayda wadiga lahay waxa laga baqay badda inuu ku dhintaa sababtaas laga baqay waaban mayno waa halyeeyadii hiilka waayey iyo sheekadii noloshooda xaabo waa magaalo xeebeed qadiim ah oo qiyaastii 85 mayl u jirta Boosaaso xarunta gobolka Bari halkani waa BBC London saacadda Afrikada Bari iminka waxay tilmaamaysaa 5tii galabnimo oo gow ah idaacadda qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shabaabka oo sheegtay in uu weeraray xero ciidan oo ku taala laanta buur oo uu khasaare geystay mas'uuliyiinta Puntlandna waxa ay sheegeen in ay soo afjareen dagaalkii aaga Garacad guulana ay sheegteen waxaad kaloo maqli doontaan Israa'iil oo si qarsoodi ah Yemen uga daadguraysay yuhuuddii ugu dambeysay ee dalkaasi joogtay badi dadka ku dhaqan magaaladan waxay noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka badda iyo xijiga badda ayaa kala qaybisa magaalada waxaana dhex mara jaan ama gacan ay biyaha baddu soo galaan kaas oo dherarkiisu 2 mayl dhan yahay sheekada aan idinla wadaagi doono waxay si gaar ah u khusaysaa xaafadda Dayaxa ee ku taalla dhinaca bari ee magaalada waa goob ka go'an magaalada inteeda kale waxaana ku dhaqan in ka badan 100 qoys oo danyar u badan duruufo nololeed oo adag ayaa haysta dadkan aqalladoodu waa kuwo bal iyo cooshad ka samaysan ma haystaan cunto ku filan biyo nadiif ah iyo daryeel caafimaadna warkooda haba sheegin hergadi haddaan Dayaxle haddaan waxaan 130 guri xoolaha lahaan jiray baadiyaanu ka tirsanayn waxa meeshana keena xoolaha yagi abaar iyo roob qaaday waxaan joognaa meel dulaya oo dabeel soo dhacdo oo roobku ka duukado meel laga gabad lahayn haddii dabeel timaad meel laga gabad lahayn suuliya male guriya fiican oo ay gabaadsadaan male ma haysano biyo macaan oo dadweynaha biyaha cabaan kamid ah waa asas dhow oo laga dhaafsan karo male anaga rafaad baa gandiga ugu haysta waxa way tixgelin ma haysano annagu hadaan hadalna waxna ka qabta ma jirto marka intaas oo dhan laga yimaado caqabadaha dhanka nolosha ka soo wajaha bulshada xaafadda Dayaxa waxa ugu daran waxaan ugu magaaladaas weyn waxa baldho waxaan ugu gudban jaan baan ugu gudban bada hooyooyinku si sahlan ugama soo adeegan karaan suuqa ardaydana waxaaba dhib ku ah in ay dugsiga tagaan adeega magaalada dadka doonaa ku fashilanahay hadaa iskuul noqoto waa ku fashilanahay anagu waxay xaydana nala arkaya anagu bari duduwana nala arkaya waxa dhacaysa maryaha ururso qata urursatana ama niba kugu imanaya tuur waa isqoynayna magaalada ciidano joogto labis ma helo maryaha qoyan baa ku galaa oo ku saadeegana dhow ku soo galaa masaafo dhan 3 kiiloomitir ayay lugeeyaan ardaydu maalin kasta 2 xilli subaxa hore iyo galabka maalin walba waxay ardaydu 2 jeer ka gudbaan badda si ay u gaaraan dugsiga أنا واحد عبد الفان محمد واحد كنا تلا ديحي واحد تدسوه صدح بنت ياسين فصل كواداي أنا سحب واحد قلنا بدأ واحد برش وقلنا واتنا وصبرنا هدون وسوقنا كورتس نوب بحساب بدأنا وانكقلنا مر بيبوقنا مر بيبوحتاي وحنجونا قوانك 10 كيلو بعض ciyaalka halkan jooga cadabaad waxay ku qabaan jaanka aad aragteen oo magaalada ay ku kala gudban tuulada aan joogno iyagoo gaajaysan oo waabarki gudbay baa la diraa ilmo naga xayirmaya
وقرع لا يهي وقد لا يهي وكعش بيلا صدح ساعة بيفديانين صدح ساعة بدي وعلنا يسايسو بدو مركي عارتها كفا إذا سننا وهذا سو بيحسمي يجوا قرح دي فدي بس دي وحليا دريرة ونقض أجريهن كوكعلا مربى قدن دروس ضافت 10 دي مربى قرح نوع دعدا safarka dheer ee ardaydani ay u galaan waxbarashada waa mid halistiisu badan tahay in ka badan 10 cunug ayaa la ii sheegay in dhowrkii sano ee ugu dambeeyay ay ku qariiqmeen badda xilli ay isku dayayeen in ay ka gudbaan kuwa sigtay sida halhaleelka ah lagu badbaadiyeyse tiradoodu waa boqolaal sanadkan haddana aan ku jirno waliba annagu wax ma hayno laakiin sanada ka horeysa carruur badan oo jaamaku laqayn baa jiro cunin maalin waxaan ugu naxday weyneed wiil cabdilaahi la dhaho sideed jira inay naga qaaday baddu baan ugu naxnay weyn oo dugsi ahayn halkan wada soo aadi jirnay kuwa saaxiibada iska gudbeen inteeda kala xarray way gudbeen way tageen way laqday wiilkaas waa dhintay in laguma guuleysan inuu soo noqdo kuwa badanna waa jiraan dhintay haddana waxaa looga haray socod waa iskoolka soo dhigo maal ka soo dhigo inkastoo dhibaatada jaanka xaabo ay wada saamaysay dhammaan qaybaha bulshada reer dayaxa waxay haddana si gaar ah u taabataa haweenka oo iyagu xilliyada qaar ragga ka nugul gabdhihii inkasta halleekaato ma ha yaraato ama ha weynaato ama habar ha ahaato ama mid murwaayo la qabo ha qaato ama mid gabar ha ahaato 13 jir 15 jir ha ahaato baddaanu wixii dumara dhib ku haysaa dhibsiyadaa waa meesha naga haysa marka jaan ku buuxsamo ee biyaha heerkoodu uu kor u kaco ardayda kuwooda yaryar ee aan dabaalan karin gaar ahaan gabdhuhu waxay saacado badan ku xanibmaan badda labadeeda dhinac maalin waxa dhacday annagoo baddi biyo nagu soo dhacay annagoo badda ku jirna oo na qaadato roobku markuu ka doo dhuux baa nagu furan biyo baa nagu soo dhacay markaas dadka qayb naga qaatay markaas ximaa dadkay noo soo dalbeen hooyooyinku waxay ubadkooda ku qaadaan dusha si ay badda uga gudbiyaan qaar ka mid ah carruurtana waxay dantu bartay xeelado ay ku badbaadaan qoysas badan ayaa ubadkooda u diiday in ay wax bartaan iyagoo ka cabsi qaba safarka halista ah ee loo galo waxbarashada waxa laga baqay ardayda dhiga lahayn waxa laga baqay badda inuu ku dhintaa sababtaas laga baqay waxa weeye kuwaan mari karin oo askool qaabil lahaa laakiin aan mari karin baa jiro oo meesha waxa weeye badda lagala baqay 10 jir ka yar ma tago oo waayo annaguna ma raaci karro iyaguna iskooda ma gudbi karaan waana soo talaabi karaan hadda gabinta daay aniga ila socotay kale baddaan hal jaanka halka maray ma mari kardo qof waa yeelo macnaha shaqo ugu maqanna maqsuul kuma noqon karo duruufo adag ayaa ku xeeran bulshada halkan ku dhaqan wayna muuqataa in ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo oo degdeg ah balse waxa kaliya ee ay xilligan dalbanayaan ayaa ah law dhibta inta leeg baan idin sheegnay muhiimna waxa noo ah waxbarashada carruurta waxaan ka codsanay marka gadiga naga dhistaan iskuul wax ku barano annagoo gabdhaha oo dhan oo dadkayga ah waxaan codsanaynaa in naloo ka dhiso arday dugsi kulli ma naloo firaa rabnaa marka annagu tuuladeeda waxaan rabnaa inaan ku helo dumarku ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen ku asturaadaanin oo ku helaanin yar iyo weyn waxay dhammaantood garowsan yihiin in waxbarashadu tahay jidka keliya ee ay uga bixi karaan nolosha adag waxay ku ballameen dadaal iyo dib u soo noqosho la'aan hankoodu waa mid aad u sarreeya himiiladoodu way fog tahay halku dhiggooduna waa warwareegi mayno weeweecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago